hadduu xeerkaa gacantiisa ku dila Somaliland ma jirto doorasho dambe oo nabad ah oo la isla ogol yahay oo ka dhacay khilaaf bulshada maxaad u soo jeedinaysaa oo ay ku xorkeen hor yaalan iyo gudoomiye Salmaan waxaan u soo jeedinayaa inay xeerkan isdaafiyaan oo miiska madaxweynaha u gudbiyaan madaxweynahana waxaan kula talin lahaa talama qaatee inuu saxeexo xeerkan haddii uu saxeexana waxaa dhammaaday bay ka dhigan tahay khilaafkii Somaliland ka jiray ee siyaasiga ah wuu dhammaaday weeye wixii dambe wuxuu noqonayaa miiska komishanka doorashooyinka iyo sidii time-ka waqtiga looga wada hadli lahaa waqtiga oo kaliya inagu hadhaya khilaafkii la isku haystayna wuu dhammaaday war ragga intaa diidan ee ummadan kitaabka u mareeya kitaabka baalaha gooyey waxaan aad anigu hambaliyeynayaa cali xaamid oo runtii markan afartan meesha isu joogay isaaq iyagu is haystay reeraha iyo baalaha isu haystay intuu ka dhex qaatay isagu si dhiiran oo geesinimo la u mariyay kuwa rifayana waxaan leeyahay waar uu hagaagsan daay ninkaas halkaas la maray mujaahid cali guray haddaan hal su'aal ku weydiiyo waynu la soconaa xaaladdan siyaasadeed ee cakiran oo waddanku ku jiro adiguna waxaad shaacisay inaad urur siyaasadeed furatay adigiina hadda waxaad taagan tahay hal la ansixiyo oo hal la dedejiyo si xaaladda dalka uga baxo ururadiinan la furay ayay warwarka ugu badanna dadka ka qabaan bal halkay iska qabanayaan doorashana hala galo khilaafkana ha laga baxo ururna waan furanaya jeclo anigu horta urur iyo xisbi iyo kursiga madaxweynuhu ku fadhiyo intaba waxay gala qaalisan dhiigga dadkayga markaan dib u joogsaday waxay ahayd markaan arkay in doorashadii dambe ee golayaasha deegaanka laga soo hormarinayo doorashadii ka horeysay ee madaxtooyada doorashadaana in badan baan wax ka qoray waxaan sheegay in aanay ka qabsoomeyn dalka horena uga qabsoomin haddana ka qabsoomeyn doorasho aan la isla ogolayn markaan arkay inuu madaxweynuhu dabada ka riixayo doorasho aan la isla ogolayn oo aan hubo haddii uu dhaqaajiyo in dhiigga shacbigaygu ku daadanayo dadkaygu oo aan sanaaduuqda korkooda xabaddu ka bilaabmi doonto markaan arkay inaan u xalaaleeyo dhiigga dadka waan diiday waxaanan ka doortay wixii aan ku waayaye in aanan aqbalin anigu waxaan taageersanaa oo cadaaladna ahayd labada doorasho way kala horreeyeen ta madaxweynaha horreysay inta madaxweynaha la soo hormariyaan ururka u samaystay oo dabeedna mas'uuliyadda doorashada dambe waxaa yeelan lahaa madaxweynaha ku soo baxay doorashada madaxtooyada Soomaha haddii doorashada madaxweynuhu soo horeyn lahayd madaxweynaha musabbixba mu noqdeen Cabdiraxmaan Cifru noqon lahaa marka waxaan islahaa Janiska ka faa'iideyso iyo bixinaha iska tago ka dambe ay yimaadaan wax badan buu bedeliyay halka hadda ururka oo doorashada madaxtooyada waan bareero waxaan raacsanaa Cabdiraxmaan hadda se ganacsatadan ورتوك منك هو لحج على بدن Somaliland أفرتني أقول عقد بدن دلكبا نقول دارها دادير وكم منك إن هالكن شوجا قلاء برلمانة أقول لحج على بدن دلكني سوتشين ترى كأننا أنا كمان نتلقين أنا كمان تلقين كلنا وحنكون تلقين تبدأ حين صارس هدي كلام كهرو قدامنا هالك حبض وكبلا مك عن لباحيو محمود هيبي تبدنا هالك الله يسكلب بحقه إلى إن الجوحة أي حبض صدوق اللي جاي بالله يسكدوا قبصه هالك كجاد إلى إيه أنت باللي جلسوا أو هذا وقوي يقصر في الرير قرى الصوماليات بدقوا حدود الصومالي اللي أنا أقول دير دقة غير كنا موصوف وارك يلا بدن حسن مركا ديانو تا ليك باكو دادني هادنا إما كتا هادو سورة قلويو هادا بأيقا قرع كدعي ميس الصومالي لان دورش عن الإسلاء أقولين رجع كلاردن وانكسي سريع لكنك محمود حاشي لينا ديانو حنقبين ويهاي السياسة انتا قران كريا ما يمكن مصاب يحيوح علينا يا ليك داد كيس يا دورش اللي اسكدلو دمعو قفك عند الآن بكوريدا وحلا أنا لما قربان دمنا محمود حاشو لكن أدو شن قربان دمناس هدي أد مصبيح كنت غيرته دور شذا عن الإسلام كله وقدام بيتي علي كله هذا هل سؤال كراعي
waxaad adiga madaxweynahanad maanta dhaliilaysa Muuse Biixi Cabdi ummadda hor keenay u kaambeen garay u ololeeyay ummadana u sheegay in uu yahay mujaahid dalka u soo halgamay Cabdiraxmaan Cirana ku tilmaamay jileec inuu yahay adiga Cali Guray ahaan waqtiga siyaasadda Soomaaliland isbedelayso maxaa mowqifkaaga siyaasiga bedela waxa bedela shalay Muuse Biixi muu ahayn madaxweyne Muuse Biixi oo madaxweynaha mi aragteen shalay markaan anigu taageersanaa Muuse Biixi oo madaxweyne amiyaynu aragnay maya maanta waynu aragnay 5 sanadood buu xukumayay 5 sanadood siduu hogaaminayay raali kuma ihi waana madaxweynihii ugu xumaa ee taariikhda Soomaaliland soo mara isaga ayaa isburuuf gareeyay inuu yahay marka Cabdiraxmaan waa sheegay wixii aanu ku dhaliilaynay ugu weynaa wuxuu ahaa waa ninka dhigta wax loo saarayo maaragtay kolban dhigta wax saaraya wala waxba hogaamin kari maaye maantana waxaynu leenahay Ilaahayow bal mid ciidan wax ka dhageysta oo dhigta wax loo saaro waxay ka oranayaan in habeenis baragta wax saaraysa oo soo takalana saari maayo labada dhigood bay marwada saaray marka Cabdiraxmaan runtii ma aqoon oo dagaalkii markii isaga iyo xirsiyada aanu saysanay dagaalkaasaan ku fogaad in kastoo isagu mar qura ila hadal waan bartay imika waa nin lagu aamini kara qarankan oo hogaamin kara oo 20 sanadood diblomaasi ahaa 20 sanadoodna siyaasi ahaa siyaasadda Soomaaliland aan waxba u dhinayn 40 sanadood waayay aragnimo uu leeyahay Muuse Biixi 40 ka sanadood 1000 muu baran 1000 okay deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo ku sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland سلام عليكم السلام عليكم waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican idinkaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku haleyn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato